anigoo salaama asxaabta ku xiran YouTube channelkeena kusoo dhawaada ugu horeyn waxaan iga codsanaynaa subscribe share like intaba inaa noo muujisaan. barnaamijkeena maanta wuxuu quseeyaa waalidiinta Soomaaliyeed, waalidiinta ka hadli rabnaa taasoo ah dhanka guurka ah. waayo waxaa dhowr jeer aragnay waalid laba dhalinyaro isku qanacsan kala geenayo, ma garan karno sababta. ma waalidkeena aadad qalbi lahayn, ma qalbiyada ay maran yihiin ma naqaano, laakiinse sida saxda ah waa wada ognahay dhammaanteena. qof walba Soomaali ah garashay garaad Ilaahay siiyey uu og yahay waalidiinta Soomaali waxay yihiin. marka arintaas ayada waxa ugu wacan ma garan karno. marka arintaas ayada waxa ugu yar falaaqeen ku sameernaa. ugu horeyn waalidiintu waxa qabaa inay ayaga yihiin dad oo qof asiba wixii meesha socdo oo san fahansanin oo shalay la soo qabtay waa dhahay kaale gurigaan gal ninka marwo noqo sidoo kale nin la soo qabtay leh gabadhaas adeerka dhalay abtiga dhalay okay faaska dhigo maanta hadii gabadhiisa aad ka soo doonatid amba gabadha ayada maanta ku rabta amba ay ku rabaato waxyaalaha kala hadlaysa qalbi waaye. marka ma garan karo wuxuu isku soo jaraa aabi waxa laga yaabaa inuu dhaho aniga hooyada shalay maana is jeclaan waa lagu daray haddana waa kana adiga dhaxdeena noqotay kuwa aan carruurtan kale intaas oo sana farxadkooda noolnahay. marka waxaas ma jiro ilaan wixii meesha yaala ma fahansanabo. marka taas ayada ah aniga ahaan ra'yi waxa ka qabaa waalidiinta Soomaalida aad inay ugu digtoonaadaan ay fiicnaan lahayd. waayo qofkan ubadka ah waalidka wuxuu ixtiraamaa inta badan. markii waalidka uu ubadkiisa ixtiraam u muujiyo waalida arkaysaa hiblaayo way xawaaran tahay, hebel wuu hawaaran yahay, muu ixtiraamin, qofaan raalli uga ahaynaa guursaday. adigba waalidkeeda haddii ubadkaaga dareenkooda ixtiraami weyse uma maleynayo inay ayagana ku ixtiraamayaan ama ku qadarinayaan. marka waalidiintu ku ahwaadaya dhow gabadhooda marka lala baxsado ama nin la fakato ay dhahayaan way iga dhimatay. waalido waxaa idin leeyahay taas aad baa oo qaldantiin. aniga oo hadlayo codka dhalinyarta Soomaaliyeed waxaa leeyahay waalidka ha ka digtoonaadaan, aad ha u fijigsanaadaan arrintaas ayada ah. sidoo kale waxaa raacinayaa anaga dhalinyar ahaan waxaa loo baahan yahay marka adi gabar aad rabaatid aniga xataa marka qaar dhalinyarteena qalab ayaa leenahay waalida gabadhiis ka doonanaya. su-aasha waalidiinta hadda joogaan kulligood beedka dhowntaas ay kala hadlaan. su-aasha ugu horeysa lagu weydiinaya waxay tahay maxaa qabataa, maxaa ku shaqaysaa, shaqadaada noocee waaye. marka adigii dhalinyarta ah waxaa loo baahan yahay intaada gabar amba guur iyo waxaas aad ku fikrin jeefkaaga inaad qorxisid nin oo noloshiisa maarayn kara inaad noqotid. adi ugu horeyn isku filnaan inaad gaartid. marka ani waxaan qabaa anakana dareenka oo nu hogaamin dad maskaxda ka fikira inaan aqoonaa jeclaan lahaa. intaas ayuu barnaamijkeena maanta qoseeyaa. sidaa idin sheegaybo mar labaad mar saddexaad waxaan iga codsanaynaa subscribe like share intaba waa xaggiina. YouTube-ka channelka kor inoogu qaada.